الحزب الوطني waxaa uu maanta doonayaa inuu ka hadlo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista diiwaangelinta muwaadinimada iyo xeerka codbixiyaasha xeer lambar 37/2007 oo ah xeer sameeyay xilliga oo lagu sameeyay dib u habayn ama maxaa kala kaabid lagu sameeyay iyo wax ka beddel waxaan jecelahay labada xeer ee isbarkan xukuumaddu gudbisay hadda ay u gudbisay golaha wakiilada inaanu ka hadalno oo xisbiga wadani si rasmi ah uga hadlo wax uu ka qabo iyo sida uu hadlo iyo sida uu arko diiwaangelinta codbixiyaasha waxay laga maarmaan u tahay in doorashooyinka lagu soo fool leh ku qabsoomaan waqtigoodii waxaana ka mas'uula komishanka qaranka taasi waa diiwaangelinta codbixiyaasha kan kale ee la yiraahdo diiwaangelinta madaniga wuxuu ku saabsan tahay in lagu bixiyo kaarka aqoonsiga muwaadinka reer Somaliland waxa isagana ka mas'uula wasaaradda arrimaha gudaha labada diiwaangelinood midba waxay u baahan tahay sharci lagu maamulo oo golaha wakiilada laga ansixiyo komishanka qaranku waxay abaabuleen daneeyaasha doorashooyinka ayagoo ka hadlayay arrinta diiwaangelinta oo ayaga codbixiyaasha oo ayaga si toos ah u khusaysa waxay hawlgeliyeen khubaro sharci waxay u yeereen daneeyaashii oo dhan si loogu sameeyo kaabis iyo wax ka beddel xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa xeerka ay dhammaystireen oo ay u gudbiyeen qabyo qoraal sharci ah waxay u gudbiyeen xukuumadda muddooyinka laga joogo ilaa 2 bilood oo dhow muddada dheer ee xukuumaddu ay haysatay iyadoo waqtigu ciriir yahay qoraalkii sharci waxay xandhada u geliyeen diiwaangelintu ay lahayd oo ay ku lifaaqeen xeerkii diiwaangelinta madaniga oo u baahnaa in xeer gaara loo sameeyo waxaana shuruud uga dhigeen in diiwaangelinta codbixiyaasha marka la qabanayo qasab ay tahay inuu qofku soo maro oo qofku kolka hore xeerka madaniga la dhammaystiro kadibna xeerka maxaan ku raayay qofka doonayo inuu codbixiyo inuu kaar qaato waxa shardi laga dhigay inuu qaato kaarka aqoonsiga waxaan u aragnaa runtii xeerka diiwaangelinta madaniga iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 37/2007 waxaan u aragnaa inay xukuumaddu ka cararayso inay samayso xeerka codbixiyaha oo ay si toos ah u samayso sidii lagu heshiiyey oo ahayd iyadoo runtii aan aad iyo aad uga xunnahay in saddexda xisbi qaran komishanka wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha intuba inay heshiis cad ka galeen oo lagu heshiiyey in xeerka madaniga sidiisa wasaaradda arrimaha gudaha ay u wado waa xeer muhiim ah ummaddu ay u baahan tahay sidiisa loo wado mudduu qaadanaya dhowr sanadood buu qaadanaya waxaa loo baahan yahay ummadoo dhan in loo wada sameeyo ku yar iyo ku weynba laakiin xeerka maxaan ku dhahaa codbixiyaha in la sameeyo oo isaga si dhaqsaa loo sameeyo oo aan lagu xirin shuruudihii lagu sameynayay iyo sidii muwaadinka loo sugayeyna uu xeerka hore sheegaya ama xeerkeennii hore ayaa sheegay hore inuu sameynay marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii lagu heshiiyey qoraaladii lagu heshiiyey madaxweynuhu qoray saddex xisbi qoran ay qoreen komishanku uu qoray wasaaradda arrimaha gudaha ay qoreen in intaba uu khilaafsan yahay xeerka maanta ka soo baxay xeerka ay u soo gudbisay xukuumadda golaha wakiilada oo uu ka hor imanayo waxaan aad iyo aad uga xunnahay qoraaladii caalamka loo diray iyo wixii lagu heshiiyey inaanay xukuumadda runtii aanay tixgelin wax tixgelina aanay u yeedhan anaan u aragnaa inay tahay khiyaamo qaran oo qaranka laga galay iyadoo loo wada qarankan maalinba ninkii doonaa inuu siduu doono u jeeyo xisbiga wadani marna anagu aqbali mayno in shuruud lagu xidho oo iyadoo muddo kororsi lala doonayo in shuruud laga dhigo in la diido in muwaadinku codbixiyuhu codkii aanu qaato kaarkiisa oo shuruud lagaga dhigo in maxaan ku idhahay kaarka madaniga lagu xidho oo la yidhaahdo aqoonsiga horta la sameeyo haddii taa aqoonsiga la sameeyana waxay noqonaysaa 3 sano 4 sano 5 sano inuu qaato
taana diyaar uma nihin xaqna uma laha ummadduna uma igban muddadii u gibatay 10 bilood baa ka haray 10kaa bilood wax ka badan dalkan iyo dadkani ma qaadi karo xukuumadda maanta jirta waxaanu ka baqaynaa runtii in dalkan halaag la geliyo khatar badani ay dhacdo haddii loo sii daayo muddada ay joogaan waayo haddadan ayaa ogtihiin dhibtay naga haysta gudaha iyo dibadda waxaan u aragnaa xeerkaa in laga leeyahay laba ujeedo kow in waqtiga doorashada lagu qabanayo la geliyo muran oo aan la dhammaystirin si loo kordhiyo muddada in qasab lagu haddii taa la diido in qasab lagu ogolaado in lagu galo doorasho bilaa kaarkii codbixinta aan dadka la siinin oo ay noqoto sidii dowladaha hoose in muran iyo istil ka dhaco oo xukuumadduna ay ku shubato waxaa anagu xisbiga wadani arrimaha noocaas ee xukuumaddu waddo waanu ka soo horjeedaa golaha wakiilada waxaan uga digaynaa in wixii ummaddani ay isku ogeyn ee ay ku ballantay waxaanay ahayn inay baaskareeyaan waxaanu ogol lahay in xeerka muwaadinka ee aqoonsiga si gaara loo sameeyo golaha wakiiladuna ansixiyo waxaanu ogol lahay in voter registrationka si doorashadu xilligeedii ay u dhacdo sidii ahayd loo qabtay lagu ballamay oo laga daayo kolba marmarsiiyaha loogu doonayo muddo kororsiga waad mahadsantihin